Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin maalmaha ka mid ah waxaan joogay gurigeyga. Waxa aan rabay wiil aan dhalo inaan u gado gaari iska raqiis ah. Run ahaantii markaas ma aanan haysan lacag aad u fara badan. Markaas aniga oo dadayayo waxaan arkay gaari aad u qurxan oo haddana aan cusub oo aan weli aan la isticmaalin, haddana lacagtiisa ay tahay 3500. Markaas waxaan go'aansaday inaan gaariga ninkii iska lahaa inaan raadsho, in aan waco. Waxaan ku fikiray wiilkayga haddii midaan aan u sameeyo inuu aad iyo aad iigu farxi doono. Run ahaantii waxaan rabaa in hadda aan waco. Marka waa kaas hadda ayaa wacaya. Aloo, waxaan rabaa in aan gaariga aan gato. Wuxuu igu yiri isla markaas waxaa igu imaadaa xaafadayda, aniga ayaan indireyska ku sii hayo. Markaas lacagta ayaa soo qaaday, waan soo baxay, gaarigayga ayaan soo kaxistay. Waxaana soo aaday gurigii. Waxaan imaaday gurigii, haddaan imaado waxaan arkay gaari kale nooc kale oo meesha yaallo. Gurigan wuxuu ku yaalaa meel aad iyo aad u fog oo aanan lahayn meel qof ugu dhoweyn. Waa yaabay, waa u soo dhaqaaqay guriga xaggiisa. Waxaa imaaday guriga iridiisa. Waxaa aad iyo aad u fiiriyay guriga qaabkiisa, aad ayuu u qurxanaa laakiin meel buu uma dhoweyn qaabkiisa. Markaa deriska ayaa isku fiiriyay 24 iyo 24 isku waaye. Waa sax. Markaas waxaa sameeyay garan waaye, waa garaacay. Saa u garaacay waa liiga furi waaye. Waa garaacay wax shanqar dhammaa maqli waaye. Markaasna waxaa wacay taleefankii. Waa saa u wacay. Markii dambe gudaha ayaa ka maqlay qayladiisa. Markii aan gudaha ka maqlay waa yaabay. Aad ayaa u cabsaday. Waan naxay. Meesha xataa guriga uma dhow. Waxaan damcay inaan daaqada xaggeeda u dhaqaaqo. Daaqada aan ka fiiriyo. Waxaa soo yaalin meesha saas u fiiriyay. Waxaan arkay kuraas iyo sawirro derbiga ku dhegan wax saas oo meelaha yaallo. Marka waxaan siri qofka waaba arki doontaa. Markii kadib waxaan arkay wax meel taagan. Qof aan dhaqaaqayn aan nuuxsanin. Waxaas dhahay waaba qofkii. Daaqada ayaan qaraacay. Qofku wuu nuuxsan waaye. Waxaan sameeyay ayaan garan waaye. Isla markaasna waxaan damcay inaan u soo dhaqaaqo xagga dambe ee albaabka, si aan u arko qofka wuxuu yahay iyo wejigiisa iyo qaabkiisa. Isla markaana waxaan u soo ambabaxay inaan soo fiirsho gadaal guriga. Markaan gadaal soo istaagana waxaan arkay qofkii inuu yahay qof la dilay oo meesha la istaajiyay oo ah qof meyd ah oo mar hore la dilay. Aniga aad ayaa u gargagaxay. Anoo si degdeg ah ayaa waxaan soo raacay gaarigaygii. Waxaana ka soo ambabaxay si degdeg ah. Waxaana wax yar kadib aan arkay in aan daaqada laga soo eegayo. Waxa aan go'aansaday in aan gaari loo baahnin oo loo baahan yahay naftayda. Waxaana is dhahay naftaada kala carar meesha. Isla markaana waa ka soo ambabaxay. Waxaana soo aaday xaafadaydii iyo dhinaceega. Marka waxaan rajaynayaa in aan gaari kale aan sii iibsado. Waxaa la rabaa u malaynaa sawirkayga inaan la surto meesha aan la dilo oo aan u ekaado qalfoof. Markaasna dadka kale saas looga sii ganacsado. Marka waxaan leeyahay inaan la dilo ayaan la damcay. Waana ka badbaaday, nasiibkayga ayaan ku badbaaday. Alxamdulillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. La soco YouTube-keena Madaris Channel. Shukran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.